diyaar u yahay inuu tiim iyagu isxilqaamo inay hawshaan ay mataqaanaa geliyaan. dowladdii Soomaaliya guddigan ay magacowday ee aynaan ku jirin waa nasiib darro, sidaan u arkahay aad bay nasiib darro u tahay. waxaa weeye waxay muujinaysaa taaso xukuumadda maanta jirtaay in ayna aqalkan isaga ah ayna lagu jirin qorshaha. nin wasiir ayaa maalin la kulmay, waxaa idhi hawshaas oo nabadgelyada waxaasaan doonaynaa. wuxuu yidhi annagu idinma ictiraafsanin inaad idinku shaqo ku leedihiin hawshan, wax shaqo ood ku leedihiin ma jirto. soo baarlamaan ma nihin baa lidhi waatiin, laakiin hawlo kale adigu shaqo ku leedihiin buuli, hawsha shaqo kuma lihin. ma sidaasaan ku kala tagnaa baan idhi markii dambe. may hadda waa dib u wada hadalla buuli. waxaad garanaysaa kolka wasiiradu kolka ay sidaas midnadu aaminsan yihiin, xukuumaddu waxay aaminsan tahay inay arrintanu tahay. xukuumaddana waxaa weeliya hogaamiyaha madaxweyneha laftiisa ayaa weeliya ayaa weeliya oo aaminsana isaga laftiisu inuu hawshaas sidaa u arkahayo. waayo intaasoo sida uu sheegaya xildhibaano iga horreeyey, intaasoo wafti baa loo baxaa, intaasoo kale la isweydiiyaa, intaasoo hawl laga qayb galaa. maalin baa waxaa jirtay shir amniga lagaga hadlahayay xalane oo aan anugu tagnay. aqalkanaga raggii ahaa waa loo diiday. idinma anaan sheegin oo khalad bay ahayd inaanaan idiin sheegin, laakiin haddaan idiin sheegahayaa. shaqo kuma lihidin baa lagu yidhi meesha, shaqo kuma lihidin baa layidhi hawshan. anigu waan iska fadhiisay si mataqaanaaye shaksi ahaan ma u fadhiisan karaa baa yidhi. haa baa la yidhi. maalinkii dambaan lagu soo daray. waxaa ka mid ahaa doctor maxaan ku dhahdaay walaalkay baa ku jiray maxaan ku dhahaa dhagajoog iyo aniga iyo rag kalaan ahay. taasi waxay muujinaysaa mustawaha aynu ka joogno hogaaminta dalka, maxaan ku dhahdaa mas-uuliyiinta ka mas-uulka meesha aynu ka joogno ayay taasi muujinaysaa. waxa jira ee dhabta ana indhaha lagama laliyo. waxaa weeye inoo suuroobi mayso haddaynaa wada shaqayn la lahayn dowladda, inaynu shaqo qabanno inooma suuroobayso. dowladdu haddii aynan organiska jira ee mataqaanaaye kala gedisan aynan mataqaanaa howlgelinina, hawl badan baa iyadana ka marnaanaysa oo wax badan uu qabsoomi mahayo. waa xaqiiqa. hadda guddi baa la magacaabay qaran, guddina inagaa magacownay. baaralayn miyay hawsha u soconaysaa oo qolo walba madaxaa kuusan miyay ku shaqaynaysaa, mise nidaam dawli oo wax coordination u sameynaya baa jira. guddiga aan hadda magacownaay waxaa weeye guddi baaralayna buu noqonayaa. inaynu guddi magacowno xaq baan u leenahay, waana sax. laakiin inaynu guddi baaralayna magacowno dowladdaa nagu qasabtay, xukuumaddaa nagu qasabtay, guddiga la magacaabahayay baa nagu qasbay. ma ahayn inay taasoo kala dhacdo ee waxay ahayd inaanu mataqaanaa dhakhaatiir baa nagu jirta, aqoon-yahano beereed baa nagu jira, aqoon-yahano waxaa nagu jira maxaan ku dhahdaa daamamka, aqoon-yahano dhismaha nagu jira oo ka mida aqalka sare. finadiska kala gedisan ee ay mataqaanaa mujtamaca soomaaliyeed iyo mujtamaca adduunku uu ku wada shaqeeyo waanu wada leenahay. in la tixgeliye bay ahayd, lama tixgelinin. taasina waxay keenaysaa inaan annagu xataa yani aanu sameyn wax baaralayn inaan wadna. waxaan soo jeedinayaa maxaan ku dhahdaa guddigeennii hore jiray in la kordhiyo, maadaama guddigaas uu markii hore u badnaa maxaan ku dhahdaa dhinacan maxaan ku dhahdaa hirshabeelle iyo gobolladan maxaan ku dhahdaa shabeellooyinka ay u badnaayeen. maadaama hadda jubbooyinka arrin cusub ay ka dhacday, in mataqaanaaye iyagana lagu daro guddi cusub oo la kordhiyo ayaan soo jeedinayaa. waxaan soo jeedinayaa cid kastoo Soomaaliya inay majaal goobta waxaa weeye nasiib darraa. haddaynu barwaaqada mucaawimo warsanno, haddaynu dhibaatada iyo abaarahana wax warsanno, gacanteennu hadday fidnaato, haddaan shacabka Soomaaliyeed nahay, maxaynu ku dambayn doonaa? maxaynu karaamo leenahay? warbiyuhu soo kuwii qoyaabo qalale soo kii la dhihi jiray maaha. qoyaabo qalale soo kii la dhihi jiray maaha.
biyuhu meeshay ka kacaan basoo kii la abuuran jiray beertu ka soo bixi jirtay maaha inaynu biyihii ka dhigno iyo roobkii iyo barwaaqadii masiibo inaan ka dhigno fatahaddu waa ka gooni laakiin inaan masiibo ka dhigno barwaaqadii meesha kuma ay jirto waxay muujinaysaa inayna shacabka soomaaliyeed haddaynu nahay aynaan u diyaarsanayn noloshadeenna inaynu ka adkaano oo aynu nolosheenna qorshaysano ayay aada iyo aada u muujinaysaa ceeb bay inagu tahay dadkeennu inay maalin walba ay noqdaan baragant dad un waxbar yahay dad un wax doonahay dad un maalin walba waxba ugu dhacay leh hallay soo gaadho leh waxaa weeye aada bay arrintaasu nasiib darro u tahay waana ka xumahay waxaa soo jeedinayaa guddigaana in la kordhiyo maxaan ku idhahdaaye dowladda soomaaliya ee aynu ka midka nahayna inaynu ka mid noqonno hoggaanka guud ee aanu leenahay inuu ka howlgalo waxa khaladka ahee jira ee aanu ka tabanayna ee arkayna ee aan ahayn tabasho ee la arkahayo ee madaxdu ka imanaya waxbaa ka xumaanaya oo iyagay taladu ka xumaanaysaana inay isa saxaan in maxaan ku idhahdaaye aan wada shaqayno in layska warqabo in laga wada tashado in dadka nin walba khibraduu leeyahay meel kastaba hadda loo tixgeliyo arrimaha caafimaadka oo hadda ugu darano emergency ana maxaan ku idhahdaaye doctor duufle iyo tiimkiisa inaynu si gooniya u caawino inagu oo aynu weliba mataqaanaa ku caawino xagga maxaan ku idhahdaaye wax allaala wixii suurtagala iyadana waa soo jeedinayaa ayna noqdaan tiim mobile oo labada dhinac u kala guuri karo degdega taas waxaana dowladda magacaabidaale laakiin waa soo jeedinaynaa inay dowladdu noocaas u magacoodo oo tiim caafimaad oo ka hortaga dhibaatooyinka caafimaad darrada ah ee iman karahay oo la huba inay imanayaan inay mataqaanaa ka hortagto